Assalaamu calaykum ku soo dhawaada janalka maalmaha. Haweeney ayaa waxaa ku dhacay cudur keli xanuun ah. Muddo badan ayayna waxay qaadanaysay daawooyin kala duwan. Ugu dambeyntii markii ka quusatay daawadii ayaa waxay dalbatay ruux keligiisa ku tabaruco si ay u siiso lacag gaarayso 20,000 oo riyaal. Dadkii ayaa waxay isla dhaxmareen akhbaarta haweeneydan ay ku dalbanayso in lagu tabaruco keliyo. Dadkii akhbaarta ay gaartay ayaa waxaa ka mid ahaa islaan waayeel ah, waxayna isla markiiba soo aaday isbitaalka ay ku jirto haweeneyda xanuunsan. Waxayna ogolaatay in caafimaadkeeda la baaro si ay keliyadeeda u tabarucdo. Maalinkii lagu ballamay in islaantii kelida laga saaro ayaa ayadoo aad u oynayso waxa qolka ugu soo galay haweeneydii xanuunsaneed. Markaasay ku tiri, maxaad la oynaysaa? Qasab miyaa lagu keenay halkan inaad keliyadaada ii bixiso? Waxay tiri islaantii, cidna ima soo qasbin, balse waxa igu qasbay inaan keliyada ku bixiyo ayaa waxay tahay inaan ku jiro faqri aad u daran, waxaana u baahanahay lacag, meel aan ka keenana ma garanayo. Waxayna islaantii sii wadatay ooyinteedii. Haweeneydii xanuunsaneed ayaa ku tiri islaantii, haddii ay sidaas tahay waxaan ku siinayaa lacagtii aan kuu ballan qaaday, wax keli ahna kaa dooni maayo, keliyadaadana iska hayso, lacagtaana iska qaado. Islaantii ayaa hadalkii rumaysan weyday, waxayna isku beddeshay ooyintii farxad. Waxayna u mahadcelisay haweeneydii xanuunsaneed, waxayna alla uga bariday inuu cudurkan ka caafiyo. Maalmo kadib haweeneydii ayaa waxay aaday isbitaalkii si mar kale lagu sameeyo baaris oo loo ogaado xaaladeeda meesha ay marayso. Dhakhaatiirtii ayaa waxay arkeen wax ay la yaabeen. Natiijadii markii ay fiiriyeen ayay waxay ka waayeen wax raad ah oo la xiriira cudurkan. Allah ayaa naagtii ka shaafiyey cudurkii oo dhan, waxayna noqotay qof caafimaad qaba. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay, dadkiina xanuunsan ku daaweeya sadaqada. Wuxuu sidoo kale xadiis kale ku leeyahay, ruuxii culays ka fayda qof kale, Allah ayaa isagana ka fayda culayska adduun iyo aakhiro. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.